maanta inaan taagannahay tuulada la yiraahdo Goobweyn meesha ay isaga daraan badda iyo webigu dhulka adduunyada ugu barwaaqada badan in dadkii Soomaaliyeed ay ku ooman yihiin kuna gaajaysan yihiin Ilaahay baa nagu cadaabi doona Soomaaliyay sharaftiina iyo karaamadiina u soo laabta Goobweyn waxay ahayd in adduunyadu ay u soo dalxiis tagto waxay ahayd inay Soomaaliyo dhan dharjiso waxay ahayd inay ahaato sharaftii iyo muuqaalka ummadda Soomaaliyeed meeshii dunida ugu barwaaqada badneed inay dadkeenu ku dhimanayaan miyaanay taariikhdaas mugdiga noo gelin buugagta war dadka Soomaaliyeed oo hurdada ka kaca war ummadeena yaanan ku fiirsanin waxan war Ilaahay baa dhulkana siiyay Soomaaliyay tusaale ka badan maanta oo aan idin keenay leey malahan badii iyo webigii baa halka isku daraya kalluunkii baa halka yaal biyihii meeshii laga soo saari lahay weeyaan beerihii meeshii laga qodi lahay weeyaan meeshani waa meeshii korontada laga soo saari lahaa markaas dadkeena baabaasayeen qof walba madaxa oo aan anigu kamid ahay waana isku xishoona qof walba Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga oo dalkiisa ka hadla u sheeg dadkaad inay sidaas yihiin qof walba Soomaaliyeed oo aan dalkiisa wax u tari karino fadlan dalkaada wax ka sheegin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh